Sayniska aasaasiga ah waa aalad khiyaano ah. Saynigu ma raadin xaqiiqda. Waxay dejisaa xeerar iyo caqabadaha si dadka aysan u helin xaqiiqda iyaga oo keliya. Tan iyo carruurnimo, waxaa na baraa sheekada ah in saynisku yahay aqoon daaqad ah oo ku saabsan adduunka. Waxaa la sheegay in saynisyahanadu ururiyaan xaqiiqooyin, falanqeeyaan, oo ay soo saaraan gabagabo. Aragtidu waxaa la sameeyey horey oo loo sheegay inay tahay xaq. Taasna ma laaban karto. Sayniska casriga ah waxaa la sameeyey dhammaadkii qarnigii 9aad. Tan iyo markaas, waxba ma beddelmin. Kaliya waa inay ku habboonaan xog cusub aragtida duugga ah. Ma shaqaynayo. Kadib saynisyahanadu waxay bilaabaan inay mala awaal sameeyaan. Waxay xal abuur ku sameeyeen dinosaurs, boqorradii Ruuma, godadka madow, maaddada mugdiga ah iyo waxyaabo badan oo kale. Kaliya si loo ilaaliyo aragtida aan shaqaynayn iyo aragti qaldan. Laga soo bilaabo aaladda aqoonta, cilmigu wuxuu u beddelay aalad khiyaano ah. Laakiin saynisyahanadu ma walwalayaan. Waxaa la siinayaa lacag. Waxay khiyaanaysaa dadka. Shaqo caadi ah.